waxaan ugu talagalnay xalaqadan in aan 5 qodob aan idiin sheegnay insha Allah taala oo aan rajaynayo markaad 5 qodob aad isku daydaan in aad samaysaan inaad guul ka gaadhaan insha Allah taala. qodobka ugu horeeya waxaan qof kasta weydiinayaa oday kaste iyo nin kaste iyo wiil kaste oo guursaday oo guur soo maray ama hadda diyaarinaya guur maxaad samaysay marka aad gabadha aad guursatay ama aad guursanayso aad raadinayso waxaad gelisay waqti waxay yiraahdaan Soomaalidu erey aan fiicnayn runtii oo u baahan in laga masaxo dhaqanka Soomaaliga run been ku soo xiro gali runna ku dhaq marka aad shukaansanayso ee la hadlayso ee gabadha maaragtay ay sheekaysanaysaan ama gabadhu kula sheekaysanayso yaana gabadhu nin la sheekaysanayso wax aanan jirin iskaga dhig balaayo yaana cirkiga dhulka maxaan ku yiraahdaa qof de laga harayo nin khatar oo tab oo waliba hadaad doontid waxyaabo badan oo material sheego hadda materialki mararka qaar kood waa laga yimid rag qaar kood waxay iska dhigaan maxaan ku yiraahdaa in ay wax kasta yaqaanaan walaalayaal oo shalay markii la isoo shukaansanay waqti badan baa la isgelinay laakiin maanta guriga markii la isla yimiday waqtiga ciriiri buu noqday waqti la isma siiyo routine bay noloshii noqotay waxaan oran lahaa marka dadka isqabe ee wada jooga kuwa hadda isguursaday iyaga waxaan leeyahay waqtigaad isgelinayseen shalay sii geliya hadda oo waqtigaasi yoonan dhexdiina ka bixin kuwa sanadaha isqaba waxaan ku oran lahaa yara baxa routine-ka bedela waqti aad kaligiin aad isku heshaan hotel aada xeebta aada isla lugeeya restaurant-ga bedela routine-ka aad ku jirtiin waqtiga labadiinu isdaawada oo isfiirsada maxaa yeelay waxaa soo noqonaya kalqacaylkii iyo dareenkii aad isku qabteen noloshu waa cidhiidhi way adag tahay nolosha waxyaabo badan baa kaa hor imanaya waxaasoo dhan si aad uga badbaado oo aanad qofka kula nool cidhiidhi aad kula noolaanin waa inaad waqtiisa siisaan waqtigaa maxaa lagaga sheekaysanaya walaalayaal wuxuu u baahan yahay waqtigaasi in la qaybiyo waqti in aad isla qaadataan aad isu sheegaysaan qofba qofka kale waxa uu ku jecel yahay amaba uu ku raacay maalintii uu guursanay gabadha waxaad u sheegtaa waxa aad ku jeclaatay ee ay kaga duwanaatay haweenka kale oo dhan ugaga sheekay uga waran waqtigaas haddaad uga waranto aad bay ugu raaxaysani waayo ninka ay adduunka la nooshaad adiga tahay gabadha adigana sida oo kale ninkaaga waxaad u tilmaantaa aad u sheegtaa waxa uu ragga kale oo dhan kaga fiican yahay ixtiraam iyo xushmad iyo qiimeyn ayuu ka dhex arkay markaasuu qalbigiisu ballaanaani markaasuu kuu soo dhowaani intii hore intuu kuu jiray uu kaaga soo dhowaani arrinta labaad walaalayaal waxa weeyaan hadalka kelmadda wanaagsan nabigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam kalimatu tayiba sadaqa ragow gabdhihiina ku dhaha kelmadba kelmadda ka macaan si fiican baa wax lagugu qabani oo service lagugu samayni oo meel alla meeshaad jeceshahay lagugu raalli gelini markaad xaaskaaga aad ku tiraahdo adduunkaada ugu qurux badan adduunkaada ugu fiican ma ku odhan kartaa walaal waan kaa codsanaya wallaahi xaaskaaga inaad ku tiraahdo adduunka walaashaada ugu qurux badan adaan kuu jecelahay haddaad xaasas badan leedahayna mid kastaba iskeed ku dhe mid kastaba iskeed way qurux badan tahay leen maxaa kuu diiday inaad ku tiraahdo wax kuu diiday ma laha xaqiiqatan bas waxaa dhici karta inuu kuu diiday dhaqanka taasaa dhici karta waxaan odhan lahaa marka walaalayaal qodobka saddexaad waxaa weeyaan waa qodob muhiim jiddan ah qodobkaani haddii runtii aad ugu fiirsato qofka kula nooli wuu kuu soo dhowaani wuu ku jeclaani intii uu kuu jiray marka hore wuu kaaga soo dhowaani 100 mitir waa maxay waa qodobka uu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam haddaad samaysaan taxaabu wuxuu leeyahay tahaaduu taxaabu sala allahu alay wasalam isku hadeeya waad isjeclaanaysaan xaaskaaga haddaad u keento wax yaroo qurux badan wax weyn kaama codsanayo wax yaroo qurux badan ayadoona ogeyn wallaahi qalbigayga wuu ballaanaani way farxi way isweydiini laakiin iska jir haddii aanan horay lagaaga baran waxaa dhici karta in laga dhao caawa maxaa kaasi ah maanta maxaa dhacay maxaa isbedelay marka hala yaabin waxaad tiraahdaa khayr baan ogaaday oon bartay oon helay just keliya waxan baan adiga kuugu talagalay inaan kaa farxiyo haweenku raggu waxay aad u jecel yihiin in wax yar loo qariyo sariirta agteeda loo dhigo
maxaan ku yidhahdaay waan u soo socdaaye in la raali geliyo ninku aad u jecel yahay adiguna hadiyadaha cajiibka ah haddaabaad marba naftaada u hibaysay adigoo jawharad ah aad siisay wax yaroo ku farxo guriga markuu ka soo galo kala hortag hadalku ka mid ba u ahaa waan soo sheegnay runtii waxaan laga soo wariyey dad badan oo saas yeelay in wax wada shaqayntii iyo wax wada qabadkii ay aad u fiicnaatay qodobka afraad waxa weeyaan qodobka la yidhaahdo wax wada qabadka iyo wax isla qabadka inaad sidii tiim aad u wada shaqaysaan oo haddii aad wada shaqaysaan oo aad wax wada qabataan isku soo dhawaashiyihiinaa fiicnaanaya waxaan odhan lahaa marka runtii gabadha waxay jeceshahay jikada in lagala shaqeeyo ninkuna wuxuu jecel yahay in raashin diiran oo macaan loo soo dhigo sariir diiran oo macaanna la siiyo waxaan odhan lahaa marka galbeedka dadka jooga inta badan haddii ay raggu shaqo tagaan gabdhow waxaan idinkula talin lahaa ninku hadduu maqan yaho shaqo ku maqan yahay uu soo daalayo amaba guriga markuu yimaado ha kala hortegin canaan iyo hadal ee horta soo dhawee waxaad siisaa saacad iyo bar maaragtay relaxation uu sameeyo marka uu kala dego maxaa yeelay isagu madaxuu ka daalaa ninku guriga markuu yimaado xasilooni buu u baahan yahay kabacdi xasiloonida markuu helo calooshuna u buuxsanto ee aad wax siiso waxaad ka codsataa hadal macaan waxa aad jeceshahay inaad ama la wadaagto haddii uu war yahay oo ay wax ku hayaan haddii aad shaqo rabto in wax lagula qabtana markaa u sheeg uu kula qabani laakiin albaabka markaad ka soo gasho haddaad ku horgeyso waxaa dhici karta in uu kaa boodo act of service in wax laysla qabto nimanku waxay jecel yihiin marka guriga ay wax ka qabtaan in la ammaano in loo sheego in la yidhaahdo wallaahi wax cajiibaad noo qabatay haddaanad sidaa noogu qaban lahayn cid noogu qabateen ma jirto wuu ku dhargayaa intaa ha dhowto wax ka badan buu kula qabani maxaa yeeley wuxuu dareemayaa inaad qiimaysay qofka ugu dhow ee qiimayn karana adiga weeyaan walaashay ninka waxaa laga rabaa xaaskiisa inuu ku yidhaahdo waa daashay lugihii baa ku bararay xaqiiqatan gabdhaha lugaha barara daalka oo dhanna cidhbaha iyo lugahay kaga dhacaan haddaad awoodiin gabdhaha wakti inta siisaan baaldi biyo ah meelshaad joogtay ku xidhan tahay haddaad meel kulul joogtana biyo yaroo qabow u geli oo lugaha u dhex dhig haddii meel qabow aad joogtana biyo yaroo diiran si lugaheedu ay u kala baxaan deetana haddii gabadhuna ninka madaxa ay u samayn karta masaaj ha la ysku sameeyo ninkuna gabadha lugaha haddii uu masaaj u samayn karo ha u sameeyo masaajkaasi wuxuu igu xidhayaa qodobka ugu dambeeya ee shanaad oo ah physical touch in la istaabto aad baan uga xishannaa innagu soomaali haddaan nahay laakiin masaajka qolkiina hurdada haddaad tuntin ku sameeya isa salaama ismucaanaqeeya nebigu sala allah alay slam markuu soo galay xaaskiisa wuu dhukan jiray madaxuu ka dhukan jiray intuu soo cadayduu guriga soo gelayey raggu sidaa ha sameeyaan gabdhahooda ha salaamaan hab ha siiyaanoo ha ku dhagaan waxaa laga yaabaa in ay dadka qaarkood ay war sheekh waxaan anaga samayn karna haddee waxaad rabtaa inaad maaragtay xaaskaaga soo dhawaato ood u soo dhawaato oo waxaad uga baahan tahay aad ka hesho sidaas haddaad yeeshaan oo saa la isugu dhowaado oo la is ag fadhiisto oo jidhkiina u istaabto xaqiiqatan waad isku soo dhowaanaysaan walaalayaal waxaan runtii ku soo xirayaa suugaanta ayadana jalleeca waayo suugaan badan oo ku soo aroortay ayaa jirta quruxda labada qof ay isku leeyihiin qaawanaanta kama hadlaya anigu waxaan ka hadlayaa cabiraadda aad baad u mahadsantihiin salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu